wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin dheer uu kaga hadlay tartanka u dhaxeeya quwadaha caalamiga ah ee doonaya inay awood ku yeeshaan dalka Djibouti oo ay warbixinta ku tilmaantay inay noqotay godka basaasiinta caalamka waxaana daga Djibouti laba qowmiyadood oo kala ah Ciisaha oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida iyo Canfarta oo asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya meesha ay ku taalo Djibouti oo u dhow meelaha dhibaatada ay ka jirto ee Afrika iyo bariga dhexe iyo xasiloonida ka jirta dalka Djibouti ayaa ka dhigtay mid muhiimad gaar ah u leh saldhigyada dawladaha ugu quwadda waaweyn sida Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska iyo Jabaan. Xasan Guuleed Abtidoon wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Djibouti xorriyadii kadib wuxuuna xilka hayay 20 sano kadib shacabka reer Djibouti waxay doorteen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kaasoo noqday madaxweynihii labaad ee dalkaasi. Waxay ugu yeeraan siyaasiyiinta Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne leh aragti dheer iyo nin aan la loodin karin siyaasadiisa. Wuxuu kasbaday jaceylka shacabkiisa, wuxuu dhisay ciidan awood badan oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtar u leh. dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkiisa ayuu xal u noqday. Wuxuu abuuray fursado lagu horumarin karo qaab dhismeedka dawliga ah iyo hanaanka maamulka. Wuxuu la yimid isbedel siyaasadeed oo awood u siinaya bulshooyinka inay ka qayb qaataan go'aan qaadashada iyo dhiirigelinta horumarka. Wuxuu abuuray jawi wada shaqayn iyo wada tashi dhexmara madaxda iyo shacabka. Wuxuu xoogga saaray sidii loo heli lahaa xasiloonida siyaasadeed ee dalkiisa isagoo isdhexgalka bulshada iyo hufnaanta maamulka aad ugu dadaalay. Wuxuu muujiyay karti hogaamineed oo cajiib ah. Sidoo kale waxa uu leeyahay waayo aragtinimo ballaaran oo dhanka maamulka ah taasoo u sahlaysa inuu qabto mas'uuliyado waaweyn. Waxa uu leeyahay awood uu ku soo bandhigi karo fikrado cusub oo faa'iido u leh bulshada. Waa madaxweyne aad uga shaqeeya siyaasadda dalkiisa midda gudaha iyo midda dibadda. Waxa uu dhiirigeliyay iskaashiga iyo wadajirka. Dalka Djibouti wuxuu ku yaalaa geeska Afrika. Wuxuu leeyahay muhiimad istiraatiiji ah oo weyn kuna saabsan arrimaha caalamiga ah. Dalkan wuxuu ku yaalaa meel istiraatiiji ah oo u dhow badda cas taasoo ka dhigaysa xarun muhiim u ah ganacsiga iyo militariga. Djibouti waxay leedahay saldhigyo militari oo caalami ah sida kuwa Mareykanka iyo Faransiiska iyo kuwa kale oo badan taasoo ka dhigaysa inay noqoto goob muhiim u ah xagga amniga iyo siyaasadda caalamka. Waxaa sidoo kale la ogyahay inay la leedahay xiriiro wanaagsan dalal kala duwan iyo ururo caalami ah taasoo ka dhigaysa inay Djibouti leedahay door muuqda oo ku saabsan arrimaha gobolka iyo guud ahaanba geeska Afrika. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu leeyahay aragti siyaasadeed oo ku saleysan xasiloonida iyo horumarka dalkiisa. Wuxuu xoogga saaray hirgelinta barnaamijyo horumarineed iyo kobcinta dhaqaalaha. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kaloo xoogga saaray ilaalinta xiriirka istiraatiijiga ah ee dalkiisa gaar ahaan xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga gobolka. Aragtidiisa siyaasadeed waxay sidoo kale ka tarjumaysaa dadaal joogto ah oo lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika. Sidoo kale dowladda Djibouti ayaa war cusub ka soo saartay xiisadda diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo gaartay meeshii ugu xumayd. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa BBC-da u sheegay in Djibouti ay diyaar u tahay in Itoobiya ay siiso marin biyood iyo sidoo kale dekad si xiisadda loo soo afjaro. Waxa kale oo intaasi ku daray in dekadaasi ay noqon doonto dekadda magaalada Tajoora oo 100 kiiloomitir u jirta xuduudda Itoobiya isla markaana leh waddo horey loo dhisay. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in hindisahan uu madaxweyne Geelle uu la wadaagi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Inta uu socdo shir madaxeedka Shiinaha Afrika ee Beijing ka furmaya 4 bisha Sebtembar ee sanadkan lamana oga sida ay arrintan wax uga bedeli doonto xiisadda taagan iyo heshiiskii uu Abiy la galay Muuse Biixi kaasoo dhaliyay carada Soomaalida.